degdega waxa ay keenaan noocyada kala duwan ee masiibooyinka dabiiciga ah iyo mid uu bini'aadanka sameeyo saad ogtihiin masiibooyinka dabeecadaha degdega ay keenaan waxa kamid ah duufaanada fatahaadaha iyo roobabka midda bini'aadanka uu sameeyana waxa kamid ah oo annaga gaar ahaan noo taabato waa midda ay sameeyaan argagixisada oo har iyo habeen u soo jeedo inay dhaawacaan ama dib weyn u geystaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan haddaba annagoo ka jawaabayno daraad iyo shalay meelihii aan tagay oo ay kamid ahaayeen wasaaradda caafimaadka xarumaheeda isbitaalada ee Martini iyo Banaadir iyo shalay oo ahayd ducadii loo sameeyay dadkii ku dhintay qaraxii Zobe ee kor u dhaafayay 500 oo qofood ayaa waxaan noo soo baxday in la sameeyo xarunta howlgallada degdega ah ee qaranka oo ka hortagta iskuna diyaariso masiibooyinkaas intaysan dhicin si ay uga jawaabto oo ay xal ugu hesho haddaba maanta oo aan halkan u imid inaan dhagax dhigo xaruntan aad u jeedaan waxa gacan naga siiyay dawladda Sweden oo dhismaheeda ka qabatay halkan iyo maxaa la dhahaa bangiga adduunka oo isagana bixinayo howlwadida mashruucan haddaba si aan shacabka Soomaaliyeed oo dhibka uu ku dhaco loogu diyaar garoobo inay isku diyaariyaan haddii wax ay dhacaan waxa kamid ah inay xaruntaani ay noqoto meel degdeg diyaar u ah si looga hortago isla markaasna looga jawaabo waxay xarumo lamid ah ka samaysanaysaa magaalo madaxyada gobolada dalka gaar ahaan maamul goboleedyada dalku ka kooban yahay marka maanta farxadaas waxaan la wadaagayaa shacabka Soomaaliyeed oo maanta haysto